جمعة مبارك سود وهذا سيشر قرأ إن شاء الله ما أنت ولا بدل ما قلنا سود وهذا وأنك سوق بن حسين وأنك أركيا وأنك سوق بن حسين وأنك سوق بن إبراهيم سود وأنا السلام يا سيشر قرية سود وهذا أنا السلام يا وأنا بلاد يا سيشر قرية إن شاء الله سيشر قرية شر ولا لا شر سود وهذا سيشر قرية سود وهذا إن شاء الله برنامج كان بلابنا سود وهذا سيشر قرية برنامج كان بلابنا إن شاء الله استوى حمير دارنا ونيرسيا يا أبو هاي أوكي إله كون حريصون حريص هذه الجنة كورابي أدي يدتك هالجماعة حسن قلدا بتدون دتك قبرني ماذا وصار دمتوردن محمود حربي إله أن حريصي أنت يوردن وصار دمتي ولا لي الكسر دوادة برنامج كعدالة جديد والنبي على ذا دون كجوكتين وأنا وجاي ما أنت تضبط بيسوقي أنا لايف كي محوك هالليا سؤال هذا يقول بدنا إيمي كذا كدونتي محن كهالليا إن شاء الله هرت برسول دوادة وأنا السلام يا جمعوه ومالين عيد مبارك جبيجي نوردن ولا ليال أنت نورت برنامج كبلابين وحن دونا يا إن أنقش جودتك الرجبوتي فنان مرسل كسر دو جبوتي ودلكاجي ودلكاجي مدنات كتاي جبوتي أنا وأنا أركضت كسر دو ير جبوتي ير وين الرولة وفنان بلوين عيسى كسر دو ودلكاجي جبوتي ودلكاجي ستي ودلكاجي سيل على وهاي ستيت أوف سوماليا ودلكاجي كسر دو مرسل وكسر دو وين يا مرسل عادي تامر كان كبح ولا عليه فنان كي سوماليات عوالة آذن وفنان سوماليات يسوق وحولي وحالي سوي ديستي ضلب باللي سوي ديستي ضلب فربضن يا اللي سوي ديستي مركز ستي بانو يسيا ستي مهورتا يسويديو ما قبر لجورسنا يا ضلب كما قبر لجورسنا يا ستي وادجان يسوق كسو جدا تركينا كسو جدان ويجان ستي معها قبر لجورسنا معها ستي مركز ولا لي البرنامج كواحد وضع ستي هاستو هاسيو يقرشوا إن ستي العقبان وحاول أن لا يرى كبرال لا يرى وعوالي يسكو قبيليين ينقلوا لا يرى إسماعيل الذي وحاول جان نكا إسماعيل الذي وحاول جان لعقو الرياء وحولها وقاسك عيسان ودرينا دمر كهوتا ودمبوك الرياء ملك استيجوغان لعقا وحولها وقاسك عيسان ودريا مركو لعقا الرياء دتك وحكيرا لعقتي وان دري wuxuu diraa bay raatay majruubeen aniga dadku badanka lacag ay soo diraan waxa iga soo diraan Muqdisho Australia Canada Faransiiska Yurubta Djibouti lacag ay soo diraan lacag ay soo dirtiin ani ma taqaanin waadi soo diraysin lacag soo ma taqaanin waan oran karaa intaan qaato lacagta jeebka gashado lacagtii waan diray waan oran karaa waadi aaminaysin easily no aniga lacag la soo diro waan qaadaa kadib anoo dirayaan nitusa video anoo dirayaan nitusa dadkii u tagtay iyaan nitusaa imikana waa nitusi doona gabadh Faransiiska joogto muxsinada walaal alla khayra ka siiyo lacagtii aad igu soo dirtay Western Union maantaan lacagtii qaatay waxay u noqotay 200 iyo cotton iyo 58 second tweet sideed iyo cotton Canadian ay noqotay amba luqadda Faransiiska lagu raa 258 Canadian بالعكتي نقطة أما $258 Canadian يلعكتي ولا لين نقطي وأنا سوق قاضي سنقول شيء واتا وسترينا وقص سوق قاضي وكاجي لعكتي نوتها
waan soo qaaday walaal aad baad u mahadsan tahay marka dadka Ottawa jooga amba dumarka Ottawa jooga ka fiirsada qofka lacagta u dhiibaysiin ka fiirsada lacag lama soo diroona waan dirnay oo lama yiraaho marka walaalayaal arrinta ma doonay inaan ku dheeraado kabaraal iyo ninka Ismaaciil Ladiye iyo Cawaale ele city baan u dhigaynaa maxay ahayd city baan u qabanaynaa maxay ahaydeen show lacagaan u ururinaa waan u diraynaa hadday daacad ka tahay run ka tahay dadkeennii baa baahan doonyar cundhufa cadayta garmulug u baahan ha u diraan hadday rag yihiin marka taa kuma dheeraanayo taa waxaa isdul taagi doona xildhibaanka ninka u ordaya aqoon-yahan oo kale weejaan Xuseen Qortaag iyo isdul taagi doona Xuseen Qortaag iyo arrinta ka hadli doona Xuseen waan ku soo qaban doonaa waan ku arkayaa markuu Maxamed Cawaale aan kala baxno qofka ugu horeeyay soo qabanaya Xuseen Qortaag marka walaalayaal ilaahay khayr ha naga siiyo lacagii aad ii soo dirteen kunkii iyo $500 kadib ka diray dadkii Ciise ee cundhufo joogay madrasadii lacagtii way gaadhay odayaashii baan nidaawisiin doonaa horta bismillaahir rahmaanir rahiim aad waan nidaawisiinaa walaalayaal isuga alxamdulillaah rabbil caalamiin isuga adeer walaalayaal videogii baan nidaawisiinayaa odayaashii cundhufo joogay lacagtii aad ii soo dirteen inay gaadhay Soomaalidu waxay tiraa isha iyo macallin ha socoto sii shargaray ciiso sii shargaray aad adeer ku soco anigoo bilciisina bil oo odayada kabaabida cundhufa la yidhaaha ku nool anigoo nabadiid cumar xoolihii uu soo diray raggii u soo dhiibay uuna soo gaadhsiiyey malcaamadii waa kaa iminkaan dhex joognay aan ku lisayno si fiican bay noo soo gaadheen dee sadaqa jaariya allaha uga dhiga sadaqa jaariya ilaa qabrigiisa iyo qiyaamihiisa allaha uga dhiga si fiican way noo soo gaadheen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وسلامتين دليرتا iyo dhamaan nabadiid Umar intii arintaasi markay dhaqdhaqaaq noo sameysay madrasadaasi nala qabatay ee noo dhistay waan kaga mahad sheeganaynaa insha Allah ta'ala anagu qandaraas ka qaatay ee dhisayay magacayguna Maxamuud Muuse uu yahay dawad ku maatantahay baan leenahay walaalkay nabadiid Umar iyo dhalinyarada kale ee hawsha la qabanaysana Allah in garab galaan leenahay sadaqatu jaariya Allah in iga dhigaan leenahay antida ay soo bixiyeen wayna soo gaadhay ee waa maganan la leenahay alxamdulillaah rabbil caalamiin aad walaalayaal intaan ta kale u gudbin lacagta waxaan anigu keligay soo diray maaha shakhsiyadeyda Ciise weyna lacagta soo bixiyay maadaama dadka badankood diidanayeen magacooga saabi magacayga nabadiid u leeyihiin anigu lacagan keligay soo bixi ma walaalahayga Ciise weyne ee barnaamijka cadaaladiid waa nabadiid si toosan ugu xidhan yaa lacagta soo bixiyay walaalayaal way gaadhay lacagtii ilaahay khayr ha naga siiyo malcaamaduna mar dhow way dhamaan doontaa marka walaalahayo ilaahay un baa baahida buuxin karay qof bil aadan oo shakhsiyan ma buuxin karayo Ciise mar waliba taageerada ila garab jooga tolka la garab jooga walaalayaal aad baad u mahadsantiin aniga waxaad ii soo dirtiina waxaan ku biiriyo maahina waxaan ka gooyno haba yaraatay ma jiro ku saxalina tolka inaan ugu biiriyo maahina tolka inaan wax ka gooyo hidaba uma leeyahay haba si haatee walaalayaal waxaan daawisiinayaa dhalinyartii barbaarta city oo siiba gaar ahaan gobolkeena Ciise cundhufo cadayta garmulug oo tagtay amba gobolka Duunyar la yiraahdo tagtay maadaama dadka dhinaca jooga dhibaato xoog ay canfartu ku hayaan dhibaato aad xoog ku hayaan haday biyo noqoto haday noqoto maaliyada haday wax waliba noqoto marka dhibaatada lagu hayo beesha Ciise dhinaca degan iyaan daawisiin doonaa kadibna waxaan daawisiin doonaa qodbadii aala buure maanta wax badan baan hayaa walaalayaal soo dhawaada aqoon Maxamed Cawaalana waan soo qaban doonaa mar dhow Xuseen Qortaag sida Yuusuf brother waa ku soo qabanaya doon hore abaare waan arkay inay soo diratay Allahumma salli ala Muhammad Ciise raxde okay soo qabanaya walaalayaal si share gareey 105 baan arkay si share gareey walaalayaal Soomaaliya gaar ahaan Ciisaan anagu isugu adeer anagu isugu
سوق هذا الله خيرك وسي سوق اوكي تولكين هذا رسوق أنا هاي دad Soomaaliya gaar ahaan qiisaan anagu qabalahan waxaan qabala hadan la helaanahay waayahay afartu waa dad xun dad lana noolaan kara maaha dad raba weeyaan wadanka inay naga qaataan anaga ay dhisaan ay kilal ku dhisaan degmo gobol xukuumadooda ay dhistay rabaan way dhisaan meel jaar oo iminka jaar aan meesha aan ka joogno hadda in yar naga saxaysa iyaga hadda dhisaan 6 euro garaama joogto ay hadda ku dhisaan madaxweynuhu soo saxiyo baajid kilal maalqabanadoodii khibradooda wax la waxay lahaayeen maali maskaxda isku geeyay anana waxaan rabaa sidoo kale dadka yagii maad gartaas walaalaha inay noo soo gurmadaan maal iyo maskax iyo muruqba ay maad gartaas wadanka maad gartaas aan ka hor joogno cadowga ay nolol yimaadaan nagu gargaaraan ay ku dhisaan wadankooda anana waxaan u joognaa inaan wadankaga ka caabino horena waan uga caabinay iminkana waan ka caabinaynaa sidaas baan leeyahay billahi tawfiiq salaam gudoomiye kulli qabalaha dal la helay ma dadkii cafarta lagu darayba mise waa dawladdeegaanka Soomaalida waa dawladdeegaanka Soomaalida weeyaan aye dawladdeegaanku muxuu wali inay qabtay mise wadadaas xagunigii loobay dadkaasi wuxuu loobay mudadii yiidan cundufo iyo cadayntii garmi lagu daray cafarta lagu daray kolka dadka maadka dawladdeegaanka Soomaalida ilaa afdan baa nagu soo xukuumad dawladdeegaanka Soomaalida uu leeyahay halka anaga nooma soo dhaafayn cafarna anagu kuma biirin halkayna naga tagay dawladda Soomaaliya naga tagay sidii u naalaanaga u joogna hadda waxa qabada 6 sano in ma aragna ay madaxweynaha dawladdeegaanka Soomaalida iyo madaxweynaha ku-xigeenka maxaa doonay fariin u diray waxaan rabnaa uu gooyinta madaxweyne ku-xigeenka buuxa anaa fariin u diraya dadka barnaamijka cadaaladiid baa fariin u diraysa madaxweyne dadkeena waa adiga arkaya beesha ciisaad matashaa beesha ciisaad dhinaca u fadhida cundufo iyo cuduuta iyo garmulug waa gobolka Soomaalida ee city bay kamid tahay caasimadeedu dir dhaba tahay madaxweyne dadkeenu dhinaca bay ku gaajoonayaan budgetkeenina waa la wareejinayaa cabdi iilay socdiyo kani waa same sheet marka anaka ciisaan waxa naga go'an dadka hadii wax loo qaban waayo muddo dheer waa ka go'ayna muddo dhow waxaan daawisiina walaalayaal xataa ceelasha biyaha dadku ka cabayaan canfartu inay baabiso gobolka canfarta ee lagu daray cuduuta candhoyta garmulug waan daawisiina walaalayaal waan daawisiina dadkeena dhibaato xoogan iyo haysata dadka dhinaca degan aad baan daawisiina walaalayaal isuga intaana si shar garay walaalayaal okay بسم الله الرحمن الرحيم dadkeennii baaba noqdayba looma ooyaan dhibaato xooga dadkeennii haysata meel kasta ay noqoto mee khalaas haddeed midnimo unbaan wax midnimo والله ملقى سماه هذا ما غشين سماه او فيديوي اوكي imika waxaan daawisiinayaa xataa ceelkii ee biyaha ka cabayeen ciisu inaan loo ogoleyn okay hore wasa waxaan waa maxay waa kan walaalayaal waan helay isuga waan helay good thank you walaalayaal ila eega marka walaalayaal ceelkii biyaha inaan dadkan waxba loo ogoleyn eega banki bay ka saareen ma uu leeyahay aye salaamu calaykum waxaan joognay iminka waa goobta magaalo cad la yidhaahdo aba madaragtay dhawrka lagu magacaabo ceelkani waa ceel madaragtay ay qoday dowladda dhexe ee federaalka kuna qoday inay ka manaafacaadaan dadka muwaadiniinteena waxaan ku nool balse waxaa joojiyey oo ceelkani in laga manaafacaado soo waayo sabab iyo carqalad u noqday dowladda cafarta kuwaasoo walaac iyo walbahaar ka muujinaya madaragtay dadka nawaaxigan dega ee ceelkani ka manaafacaadka dhulka iyaga ayay naga qaadanayaan ama wadda dalbalaarsi ay nagu sameynaya koo leh ayaa madaragtay ceelkani dadkii oo biyo u ooman haraad u dhimanaya oo carqaladaysan inay xidhaan sabab u noqday waana ceel biyo macaan xagga dadka u fiican ceelka magaalada Garbaciisa markay ka cabto waa ceel aan loogu talagelin dadku inay ka cabaan kaliya loogu talagalay
in jidka lagu dhiso oo waxaa qotay qoladii Kingaland ku jiray Koreada dawladda sameysay marka waa biyo qaraad oo qaliyaadii aab loo isticmaalay annaka ayaa dooray shirkadii inay markay xidhi tirin aan deysano si aan maartay waxa ka maarmana maadaamanaysan kala macaano loo qoday oo noo farnirena waa la diiday waa loo diiday oo waliba gudoomiyaha degmada lagu daray Axmed Bara ninka aan faray saacil yiraahdo wuxuu noogu yiri ceelkani waxaan furaynaa marka aan labada qowmiyadeed isla dejinay wada noolaadaan laakiin inta koor ciise qura kama manaafacaadanayo marka dhibaatada saas ayaa naysata inaan noo soo gurmado oo garabna siyaano baahna ceelku kale bamban buu baahan yahay Soomaa ceelku dhameystay bambu baahan yahay waa la tijaabiyay hadda ciisu socday biisa meel kasta gaadhin ilaa markuu dhacay biyo ciisu socdo la tijaabiyay aad baan ma santa madana saxariid aad iyo aad waa ka dadkeeni walaalayaal siday u dhibaatayseen meel kasta ay joogaan annaguna haddeed ololaha waxaan galaynaa hawsheena dowladdii Ethiopia oromada uu xukumay Abu Cabdi Axmed Cabdi anu waxaan ugu yeeray Abu Cabdi waan soo taaganahay gobolkayaga Cuduudta Canduudta Garmulug ee loo yaqaano Dhuunyar insha Allah wuxuu ka mid noqon doonaa gobolka City annagu haddaan ciisanahay wax xaq darra ma doonayno waxaynu ma doonayna meel kasta ay taagan meel kasta aan deganahay waxa weeyaan samirka iyo dulqaadku meel baa lagu gaadhaa dadka qaarkood maxaa ciise aamusi ciisu sidan maahan waxba ka niyad jabina waxa degdeg oo dhan degdeg waa amal shaytaan degdeg waa amal shaytaan wax waliba laga fiirsadaa waxana way iska soo dhamaani wax waliba sidiisu ku soo noqoni l'histoire se répète histoire ku isku soo celisa ciise fragile ka jabusiya on est jabusiya lagu haasto ciise noqon doonaan waqtigu isaga iman aad iyo aad ugu dambeyn waxaan doonayaa intaan nii furin aala booray oo loo yaqaan Ismaaciil Umar Geyle madaxweynaha Djibouti intaan nii furin khudbadiisa waxaan doonayaa inaan dhageysiyo dhalinyartii barbaarta City oo tagtay Cuduudta Canduudta Garmulug amba gobolka Dhuunyar arrintii oo lagu goostay ciise dhinaca jooga ciise noole lagu goostay gobolka City ma kamid noqon doona iyaan walaalayaal dhageysinaya ku soo dhawaada okay good يرسل آد بسم الله الرحمن الرحيم ولا يلوكا داودا وكو رجع عيسى قندتي قلعت كي اكي 47 انا عيسى مدوبي وكو والله فاسكله قلد الهي بانو ديبين هاد والله ابياشنا نو ديبين بربارتا الهي نو سو دخمرش بربارتا ilaahay baa noo soo dhexmari iyo boqor annaguna waan u ducaynayn barbaarta iyo boqorka iyo mas-uuladaba waan u ducaynayn mabulme waxa weeyin kulle saacadda aan joognana waxaa rajaan qabla saacadda wixii ka dambeeya waxaan u malaynaynaa wejigu dhinac buu jeedaa dhinac khayr lay noqono waan isla qaadanna dhallinyarada iyo beesha ciise deegaankan taal hoo yaalan laydhaa deegaanka hoo yaala Dhuunyar magac dheer magac waxaa la yidhaha Dhuunyar baa la yidhaha Dhuunyar gobolka dee waxa weeyaan soonkii Dhuunyar inaan insha allahu haddii ilaahay yidhaahdo inuu go-aankiisa qaato waan isla qaadanay oday iyo inin iyo bulshada oo dhan soonkii Dhuunyar waan isla qaadanay markaan sheegnay kaa weeye dhaqmata kale ma hayn ilaahay baa naga warroon waa adiga arkaya dhallinyaradu waxaa ka soo baxnay go'aanada asla soo qaadanay dhalinyaradu waa hay'adda dhaqanka xidhan imikana waxaan joognaa busantii weyneed ee hoo yaalaan joognaa waxaan u malaynaynaa saacadda laga bilaabana go'aanka aan qaadanay cid ka laamina ma jirto go'aankuna u dhacay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh allahu akbar good waxaan u baahanahay aad iyo aad walaalayaal waxaan dhageysin doonaa khudbadii ugu dambeysay uu aala booray dhalinyarta iskugu keenay ayaan doorsiin doonaa oo qabyaalada ka hadlay oo madaxweyne fiican oo qabyaalada nacay khudbadan dhageysin doonaa walaalayaal ila dhageysta khudbada madaxweyne aala booray ila dhageysta وانا فلقين دونا على بوري لا دغيستا ان شاء الله marka kadibna waxaan soo qaban doonaa aqoonyahan Maxamed Cawaale ayaan soo qaban doonaa okay ismaaciil sheekada ii wad marka adeer sheekada ii wad
حسب أورنجرتي وسؤال دعوي أما بس وفنان هيسو يقان فريد صح واحد dadka oo dhan haysta weeye cudurkaas waa cudur horta cudur markuu yahayna qabyaaladu marka ay maxaa dhacay internetkayga what's going on ala bor inuu nasiib badan yahay anaa garanayo waxaad dadka oo dhan haysta weeye cudurkaas waa cudur horta cudur markuu yahayna qabyaaladu marka ay what the fuck okay balin yar baan dhaafinay joogo I don't know walaalayaal khudbadiisa waa muhiim inaan dhegeysiyo aad bay muhiim u tahay maadaama annaka nagu dhaga hadlayo ciisa ku dhaga hadlayo uu leeyahay kuwa qurbaha jooga iyo qabyaaladana baraya kuwa jira lacagtay soo diraan kunka faran kule reerkayagii ku hagaaji reerkayagii war annaka maalin iyo dharaar haddii aan beesha ciise weynanahay lacagteeda ciisoon baa lagu hagaajinay marka mas-uuliyadda isaga xukuumaddiisa kamid ee qabyaaladooda oo ugu horeysa islaantiisuna waa nidaawisiini bismillahi raxmaani raxiim khudbadiisa inaan nidaawisiiyaan doonayaa walaalayaal khudbadiisa aad inaan nidaawisiiyaan rabaa bismillahi raxmaani raxiim reer libnaan dadka dibad u baxay waxa ugu badan adduunka libaaneed hay bal sheekada wad yar joog sheekada aan doonayaa dadkana cudur markuu yahayna adoo cudur kaa bilaabmaa yar joog ada waxaad dadka oo dhan haysta weeye cudurkaas waa cudur horta cudur markuu yahayna qabyaaladu marka ay nin mas-uulad gasho waa mortel weeye dadkana isagana waxbay yeelaysaa dalkana waxbay yeelaysaa beri baan maqlayay ragga reer libnaan dadka dibad u baxay waxa ugu badan adduunka libaaneed kolka ay dibadda joogaanna liibaaneed bay wada yihiin daraata ay aeroboortka soo joogsadaan beirutna way kala baxaan laba albaab ka kala baxaanba laba albaab ka kala galaan ka gaalka iyo ka islaamka iminka sidii wax kale oo dhan kale u ruman baan aragnay oo kuwii dabadda joogay baan baraya qabyaalada kuwa dabadda joogay yaaba na baraba qabyaalada oo kunka faran u dir reerkaygiyo waddankiiba gaajoonaya la yidhi kunka faran dir oo laakiin xaafadaydii geey buu odhanaya xaafadaydii isaguba hadduu soo toos u geeyo way iska fiicnaan lahayd laakiin inuu tanna ka baxa ma doonayo halkanna waxbaa jiidanaya waxa aan falsafad ka dhiganay siyaasad madaxweyne waad maadsantahay intaan kaa rabnaan doonaynay shicibku inay nala dhegeystaan intaan bay ahayd madaxweyne waxaan ku leenahay annagii aqooyan maxamed cawaale sidaa ayaa sheegaysid kunkaa faran intaan qaadno iyaan odhanaynaa dadka dhinacaa jooga u dira dadka yagii ciise aha hadday noqoto saylac lugaya state haddii ay noqoto city iyo haddii ay jabuuti noqoto madaxweyne sidaa baan ku odhanaynaa madaxweyne waa annagu waxaad leedahay qabyaalada kuwa qurba jooggaana bara laba nebi yaa jiray example baan isagoo usoo qaadanaya laba nebi mid inuu ibrahim yahay yaan saxayaa taa shuur ma yihi nebi quraata waan shuur baan ahay nebi luud isagoo iyadoo nebi qaba ahlunaar bay ahayd islaantiisu luud fircoonna isagoo ilaah sheegtay islaantiisuna muuminad bay ahayd oo ahluljanna ahayd
qabyaaladu sheegay waxay ka bilaamataa islaantiisa iyo isagay ka bilaamataa markuu meel kasta dhigay nin isaga la qabiila iyo aniga ila qabiila oo mamaasana taa qabyaalad maaha khadraxayd markay dhakhtarro dhisayso iyo meel kasta dhisayso qabyaalad maaha ismaaciil haddii aad og tahay adeer iyo haddii aad ogeynba bal waan ku daawisiinayaa bal ila daawo adeer xukuumaddaada eeg waxaa la idhaahaa beenaalaha afkiisiyo iyo dhegiisu isma malqaan madaxweyne wasiirka xukuumaddaada bal daawo wuxuu leeyahay adiguna qabyaaladda waxaad leedahay handeyno bal ila daawo madaxweyne bal ila daawo alla madaxweyne fiican oo qabyaaladda nacab ismaaciil umar geela la arka ila daawo madaxweyne wasiirka xukuumaddaada ila daawo madaxweyne xirfadaha mustafa maxamed maxamuud loogu qabtay marti sharaf ballaaran caalamiga ee Kambeski ayaa wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mustafa maxamed maxamuud loogu qabtay marti sharaf ballaaran munaasabada cazumada ama martiqaadkan ayaa waxay ahayd mid ay u fidisay wasiirka beesha duriyada Sheekh Isaaq oo uu wasiirku ka soo jeedo munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa ka sokow xubnaha iyo dadka ka socda beeshaasi waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan kuwaasi oo xilal hore ka soo qabtay wasaaradda waxbarashada qaranka iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo xilal wasaaradeed ka soo qabtay dawladda Djibouti xafladan iyo martiqaadkan ballaaran ee wasiirka loo qabtay waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan oo mugooga u weyn uu ka socdo odayaal dhaqameedka iyo cuqaasha iyo waxgaradka iyo culimaadudiinka beesha duriyada Sheekh Isaaq waxay dhammaantoodba hambalyo iyo bogaadin u dirayeen oo ay uga soo qayb galeen munaasabadaasi farxadda wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha oo ay ku hambalyeynayeen xilka ballaaran ee uu u igmaday madaxweynaha jamhuuriyaddu mudane Ismaaciil Umar Geele waxa kaloo iga dhaliyay reer ballaaran iga dhaliyay alxamdulillah markaas sidaasina maamulkeeda reerkaasina oo qarankaasina wuxuu ka kooban yahay qaybad badan buu ka kooban yahay marka qaybta aan ka soo jeedo waa qayb bay ka mid tahay qaranka ka mid tahay marka aniga dadaalkaygu iyo walwalkaygu iyo waxay noqonaysaa inaan qaybta aan ka soo jeedo ay qaranka qayb wax ka qaadan lahayd haduu Allah ilaahay ma igu soo ilaahay muxuu ka dhaliyay iga dhaliyay reer ballaaran iga dhaliyay alxamdulillah markaas sidaasina maamulkeeda reerkaasina oo aad baad u mahadsan tahay wuxuu sameeyay imika wuxuu qoray ninka wasiirka yar gabadheenu korsatay wuxuu meeshiisii oo dhan wuxuu ka dhigay wala Isaaq wala qabiilkiisii ka dhigay madaxweyne taa ma aragtid taa qabyaalad ma madaxweyne ma aragtid annakii maxamed cawaale iyo dadka beelweynta ciise lacagtay soo dirayaan ee tolkooda u dirayaan baad aragtaa waa qabyaalad waxaaba ku dhibay dhageyso madaxweyne dhageyso islaantaada waxay samayso haddaad ogeen annaka ku ogeysiinaan adeer dhageyso xoolihii dalka say u qaadaysiyo dhinacay geenayso ubuk dhakhtar male tojoora dhakhtar male ubuk liisee male jaamacadiya adduun lacagtii Djibouti ay qaadaysa dhinacay geenaysa madaxweyne ku daawsiina haddii awgeyn annaka ku ogeysiinayna idaacaddii RTD-da maaha ee propagandada iyo waxa adigu rabtay ka soo baxaysa ma Ismaaciil Umar Geela furay maqaayad Ismaaciil Umar Geela dukaan furay maaha tani waa radio Ciisa dhageyso madaxweyne Ciisa dib kugu hayay Allah ka caafiyo cudurka Ciisa ya adeer dhageyso aad علي عبد الفرح وانا توصي علي عبد الفرح
ninka arkaya madaxweyne taa kuma dhibto taa madaxweyne kuma dhibto cali cabdi faarax iyo khadre xayd iyo dhakhtarada kala beerka ka dhisaysa iyo raashinkan joogtada ee geenayso kala beyrka iyo gabiiley iyo hargeysa geenayso madaxweyne ma aragtid meesha uu yaashaa ka yimaadeen saylac iyo geerisana dadku waxa u ekaadeen dhuxul ee u ekaadeen ma aragtid taa ma waxaad aragtaa ta qurba jooga beesha ciise weyne ay soo bixiyeen sida dadka hablahaasiiba haweenka ilaahay khayra ka siiya lacag ay soo dirayaan ee aniga igu soo xawilayaan ee annakuna hameen iyo dharaar dadkeena u surow joogno taabaa ku dhibta ee tani ma aragtid tani qabyaaladan ma aragtid iyo kuwan inaadeerada ay meel waliba ku sharaxday ma aragtid madaxweyne waxaad aragtaa taandira inaad aragtaa annagu waa nagu ballan madaxweyne meel kaste ee beesha ciise joogto hadday noqoto saylac lugaya state hadday noqoto jabuuti hadday noqoto city madaxweyne waa nagu ballan hameen iyo dharaar inaan dadkeena wax u qabano aad iyo aad bal waxaan isku eegi aqooyan maxamed cawaale hadduu uu wakti hayo inaan soo qabto iyaan isku hayo maadaamuu shaqo ku jiray haddii kalena walaalayaal maanta magaaladan joogaa we have enough time waan soo qabanayaa waa xalli karaysa walaalayaal okay waan sugayaa asalaamu calaykum assalaamu calaykum aqooyan maxamed malay maqlayaa waa lagu malqayaa hawl baan gari laakiin waan kugu soo noqoni arrin yar baan imika doonaya inaan dad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat horta nabadiid waxaan doonaya inaan kuu sheego ay dhammaan dadka adduunyadan ku dhaqan ee soomaaliyeed amba reer jabuuti inay ogaadaan horta waxaan samaynay adiga waxaan su-aal baan dadkii hor dhignay daawadayaasheeda anigu shaksiyaan 500 oo qof aan u diray su-aashaas oo ah nabadiid ma u qalmaa baan nidhi in ma istaahilaa in award la siiyo waxaan la yaabay dadkiina dibba u wala direen kumayaal qof baa waxa ii soo diray horta intaanan aan yaabay ku qof 99% yes bay yidhahdeen yes bay soo wala qorayeen marka horta waad iga nasiib badan tahay aniga idil baa waa xaggii reer koonfurtee maseeray oo waaban maaragtay hinaasayba waka certificagii waa ka lagu soo adigana waan kuu soo diray horta waxaan ku leeyahay congratulation thank you certificaga waka certificaga anigana kuu soo diray marka dadku arkaan marka dadku waxaan weydiiyo dadkii ka idhi maxaa ujeedadaasi uu ninkaasi aan ugu talagalnay waxa weeye inaan ogaano inta baaxiisu uu leeyahay inta ay leeg tahay dadku inay fahansan yihiin wuxuu qabanayo horta waxay aad kugu mahadnaqayaan waxqabadkaaga waxay dhahay ninkan ma hadlo un arrimaha maaragtay jabuuti aad ka howlgashay ood ugu horreysay oon bilownay jabuuti ahayd marka ina cumar geela aala boorana ha ku farxo amba ka naxo waagiaan ciidsaynay faamilyo reer jabuutiya amba qoysas reer jabuutiya oo belbela ku dhaqan oo aad u taban de isagu ma fahansano isagu iyo waxqabadkaaga baraarujinta marka wata certificadii naga guddoon baa lagu yidhi waxayna talo kugu soo gebagabeeyeen waxna ha u jexin hawsha xaggaa ka wad waanan kuu soo ducaynaynaa bay ku yidhahdeen waa kuwa ku wala jiraan majority-ga 1,000 qof 95% adeshay 9% yes yiri in way ka aamustay inna waxaan odhan karaa ilaa 5% no bay soo qoreen way fiican tahay ma istaahila laakiin 5% yaa maasha allah maaragtay kusoo ansixis oo certificate gabadh baa ii soo dirtay maxamed waad mahadsan tahay intaa ii samaysay waad mahadsan tahay thank you gabadh baa ii soo dirtay buraanbur bay habluhu yidhaahin baan ka filaa iyo buraanbur wax sidaaya bal gabadhaan dadka dhegeysiin intaana waxaan leeyahay walaalayaal waa mahadsantihiin kolleyba maxamed inata wax waliba waxaa jira avantage iyo inconvenient
avantage and convenio waxaan convenio may sheegteen intaan yes gabadha u shidin convenio may sheegteen inta qofku waxna iska daabu ku oran karaya waxna ku wada ها avantage way sheegteen waxay yidhaahdeen weerar yaroo kulul buu leeyahay uu mararka qaarkood shakhsiyaad aflagaadeeya intaa iska daa bay yidhaahdeen marxabo waan gaarsiinayaa baa yidhi idigoo weliba maqlayaan gaarsiinayaa baa yidhi waxay yidhaahdeen shakhsiyaad buu weeraraa laakiin waa ninka idin meesha idin adeecadaasi bay yidhahdeen nabadi t v waa adeecadda idin iska dhex aragna yidhahdeen waxaa kaloo dhan waa shaqoshi bay yidhahdeen wallahi waa say yidhahdeen waxay yidhahdeen dalka jabuuti xitaa waa lanagu diirsadaa waa la sugaa oo dalka jabuuti xoog baa looga daawadaa marka waxa ay yidhaahdeen xaggaa ka wada ha joojinina waxyaalo badan oo isbedelay baa jira bay yidhahdeen dalka jabuuti iska bedelay xukuumadda ismaaciil cumar geele horta waxa nasiib daraa dadku wayba arkayaanba maaragtay markuu hadlayay isaga maaha waxan marka meesha la keeno waa in lasoo diray odagu haddii toro farihiisa way ka baxday waddanka mama maamulaba anu in yar inay ku hadhaan moodaye waxa uu ka hadlayo iyo waxa dadka tusaysi badaawo wuxuu ka hadlayaa uu leeyahay dalkii maaragtay qabiil baa la keenay qaar baa qabiil loo keenay horta waxaan xasuusinayaa 70 buu joogaa inuu seexday waxaad ku garanaysaa liibaneegu adduunyada imika uguma badna dadka dibadda ku nool soomaalida ka badatoo dhaaftay ko waxaa ka badan hindida dhankii magaru dawaqada odagu dawaqsan hindida ka badan waa runtiisa 70 iyo 80 liibaneega ugu badnaa waxaa dibadda adduunyada u baxay imika waa la dhaafay soomaalidaba ka badanba tiiba ku qufulan tiiba weli ku qufulan hindidana ka badanba qoomiyado badan xitaa philippine qudhowga philippine dadka reer philippine xoog bay adduunyada ugu jiraan okay inta kaleen doonaya isaga intaa gelin bal horta gabadhii ha u shido adoo iga raaliya kadib waad ku soconay u shig anna waan ku soo noqonay waan yar dhaadhicin qofan mishir laga dhexeeyo yaan u yar galay marka waan kugu soo laami marka adu anaa kula soo hadlay kolkaas dib aan usoo gala hawl yar baan bariiska horta waa inaan bisleeyaa bariiska yar bislayna dad badan baa sigan soo qaqabanay iska sii shaqaysa qabo waa inagu soo noqonay inaan u jawaabaan rabaa dadkana waxaan doonaan usii sheegay walaalayaal ha soconina waxaan u jawaabayaa madaxweyne ismaaciil cumar geele qaladaad weyn buu galay uu qabiil ka hadlay bad uuna garanayn buu isku dhex galay marka waxaan madaxweynahan kaga tegayaa mudane madaxweyne dhalinyartii waddankaa soo kacday dhalinyartii waddanka indhaha usoo kala qaaday haddeed waa lagula xisaabtamayaa sidii hore maaha irtideedii ayaad haysatay ee beenta ah ee dadka waxaad adigu jecesha uu lasoo gelinayay way dhammaatay it's finish adiga maahayna kii xitaa siyaasi iska dhiga ee dadka doona inuu khayaano iyo been u sheega annagu waxaan nidar ku gallay inaan dadka u adeegno walaa ku quran qabiil qurana wada walaa ku maaragtay khayaano wada qabiilkana aabiheed baa tahay adigu waana is og tahayna kani idina wasiirka kuwa hadday kaa daacanta waad eryi lahayd laakiin waad la og tahay waxna kama qaban kartid qabiil baa wax lagu bixiyaa dalkaaga siyaasad dalka jabuuti siyaasadaadu yaa ka wadaa siyaasadaadu qabiil bay ku dhisan tahay marka iyaad waalaysa carruur baa jooga dhukan sheekada way dhammaatay waa inagu soo noqonayaa waa ballan hadduu ilaahayna hawl baan yar galaya idin way garaalaya assalaamu calaykum xuseen qortaag invitation xuseen qortaag intaan dadka dhegeysiinayo soo diro xuseen dadkan dhegeysiinayaa anis waan kusoo qabanayaa soomaali weyn waan kusoo qabanayaa waan kuu jeedaa soo diro invitation aan kusoo qabtay intaan gabadha u shidayo buraanburkeyga soo qabo bismillah rahmaan walaala ila dhegeysta horta waxaan ii sheegayaana attack personnelka aad sheegaysiin waa waxaad idinku aragteen waxaan anigu arkay maaha ma noqonayo dictator haddii jirto attack personnel dadka attack gareeyo waan iga aqbalay waan iska daynayaa dhib male waan iska daynayaa intaa waa intii raacigaalnimada ka filaa waan iska daynayaa waad mahadsantihiin votka ay soo vote garayseen imika waxaan ku jiraa facebookgii kale nabadiid cumar waxaa ii yaalla ilamaayo wallahi 4,000 in gaadhaysa oo message ii yaalla kani kale cadaaladiid sidaasi leeg walaalahay oo raalli ahaada haddaan iga soo jawaabi waaya messaajada inta ii soo vote garaysay waad mahadsantihiin baan leeyahay inta ii vote garayna waad mahadsantihiin baan leeyahay inta ka aamustayna waa mahadsantihiin baan leeyahay si kalena ha u qaadanina maanta magaaladan iska joogaa marka kale busy baan ahay waan shaqeeyaa nima u jawaabi karayo raalli ahaadana si kalena u arkina intaa waxaan ii shidayaa gabadha kadibna xuseen qoortaag diyaar baan ku waayo kusoo qabanayaa
gabadha ila dhegeysta. Wow. nabadiidu gesilo bogatahay salintiyo barbartana sharafa xaday kale beelgaajiyashi baqdada daranjir boqorada laga ibsado ubaxi ka beermiya dhashi sheekaysa tahay garashada aqoontiyo caqligiyo baxaan baxa بشاش غيبت تدريدت غيبت غلالن غيبت وحدة aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal waa ku mahad celinaya waa mahadsantahay intaa soo duubtay Turkey aad baad u mahadsantihiin Xuseen Qortaag where are you man Xuseen Qortaag waan kuu soo diray Xuseen Qortaag accept grey insha Allah Soomaali weyn anis waan ku soo qabanaa السلام عليكم قروق سلام نبدي سيتا Xuseen dadkan ku barayaa waad isixi hadii aan wax ka iloobay ninkan Xuseen baa la yiraahdaa Xuseen Qortaag inta garanayso way garanaysaa ninka waa nin yar oo dhalinyaro oo wax bartay oo maanta u taagan inuu soo sharaxo xildhibaan dalka Sweden soo sama Xuseen soo sharaxay way dhamaatay waa soo sharaxday insha Allah kullay ma ku guuleysataa booli ku guuleystaa ma sha Allah waxaan ku oranayaa marka mudane xildhibaan soo dhawow barnaamijka waa la socotaan ka fila ku soco marka horta nabadiid waa maasan tahay adigana waan ku salaamayaa congratulation oo aragii ku hambaliyaa kamid yahay iyo dadkii ku hambaliyo dhan waan salaamayaa ma sha Allah waxaan ka faa'iideysanayaa maanta gabadhii yareed ee Alsabiix lagu dilay ilaa uu naxariisto mahado هذه مدة كررتي وين عاويان عاوتان بيجبرها سنة وبان تهاي ويداسي رالو فام لمبرك فاميلي جوجا يدت كي جماعة سما بعاون لين قبل وإن شاء الله وان ها وان صدري وان هيا ولا صدري أنا أقول لنا عاوتاكا طلبان دا ساد شيء أن عند في عديتنا وحكاجا شيء عارك جوبنا نبضي مرضوان قادني وعارك ولا جتاجي mid beel bahaday meeshaan insha Allah ismaan miraa dib u noqonaya oo isaguna ka haysta barbar badan isagana iyadana meesha calba laga taagi doona خلاص waxay maharin insha Allah waa guul weyn xagaasina waxaan doonaynaa ka hadlo inkastoo aan isku level hayn ani cawaaladna laakiin arikaas waa arin ani gubay wuxuu ku soo qoray Facebook wuxuu ku soo qoray waxa laga soo codsaday hees city yaa laga soo codsaday city waxaan u sheegay walaalka cawalaadanu heerta heestada koob iska hayso ana xor lahaa ku soo tuurin social media iyo youtube-ka ha ku soo tuurin iska hayso walaalkay maxaa yeelay markii dagaalku dhacayay ayamihii dagaalku socday sanado badan buu socday dagaalku nabadiidu wada socday waa 10 sano wuxuu abdiilay meeshaasi xoog iyo wax ku haystay maslax ismaan mire ibrahim ila maxay iska daayo ragaas iyo ragii buuraha galay exactly xamud gabi wixii wala baxo dhan ragii buuraha galay weeyaan oo dagaaltamayay iyo barbaarto dhan waxa leeyahay cawalaaduna inta xagee ku maqnaa cawalaaduna nabadiidu cawalaaduna waxa su'aal weydiinaya xaguu ku maqnaa marka xaguu ku maqnaa fanaan Soomaaliyeed waa marka fanaan Soomaaliyeed Soomaa hadda waxa leeyahay iskalaaji iyo kaba yare haystaan iscaay ka dhig kaba yare iyo iskalaaji haysayaan meeshan rag baa u kacay rag baa haysta awaanadii waxa la hadlay city way la soo hadleen iyo fanaaniintii city joogay dibdhabe waxay galeen cawaladan inuu iska haysto walaalkay uma baahan yahay heestaas waxay hambaliyo ay u soo direen magaciisii xabad bay aad xabad baa yaa maartay mahad loo soo diray cawaladan city maaha gabar yaroo la guursanayo maaha waan iba kaba hadduu dhegeysanayo cawaladan inuu city maaha gabar yaroo la guursanayo maaha iska haysto heestaada waqtigu markuu adkaa dagaal lagu jiray lacagihan diranay toddobaad ma seexan nabadida adigu waa joogtay adiga lacagaha ururinay dagaalka ku jirnay abdiilay waxay buurihii lacag hoteeladii raggii ay city ku jireen oo dhan lacagaha la bixinay cawaladan intuu joog intaa cawaladan Soomaa ninkii maartay raggii furlabay iyo raggii Yunus Muuse
ninkii cadowgu lacag uu uriyay xirma awaalan soo ninka ma awaaladana anu waan ku yaqaanaa laakiin dadku kuma yaqaanaan way dadku way ku bartaan inaadiradi buu lacag intuu rag cadow uu uriyay uu yiri xid avokaa qabso xid buu ragaas rag furlaba Yunus Musa oo Belgiga degan iyo lacag intuu uriyay raga waa cadow xir waxa isaga ka dambeeya leeyahay waa nin la yiraahdo Kabrar waa la sheegay waa ninkii inaadir okay isaga aniga gacal biido ma hadlayo laakiin Kabrar waxaan sheegayaa ka joogso arrinkaas waxaan la hadlayaa ummadda Ottawa degan waa la hayo showgaasi boycott ka sameeya lacag baa lagu urursanayaa waa la qaadanaya ragaas xagee maran nabadid xagee markii dagaalkii lagu jiray maanta juhdiga xagaas xagee joogo ragaas xagee joogay waxaad ilowday nin kale aad ilowday Xuseen aad uma taqaanid annaka Canada wala joognay kabraalku jira maaha waa baal xuno tuuga weeyaan Ismaaciil Ladiye nin la yiraahdo jira Ismaaciil Ladiye waa nin maxay ahaydeen jooga Ottawa isagoo gorgorada dumarku baadha lacagu intuu ka soo wala ururiyo dumarka ayuu yiraahdo ogaaska Ciisaan u direynaa isagii oday la oranayay magaciisa ay gooyay muxuu ahaa Usmaan Raagi wax Raagisaa la oranayay lacagtii hore ogaaska 2010 way cuneen lacagtana imika ururiyeenna waan dirna un bay yiraahdeen wax la diray wax ogaaska gaari wax meel gaari ma jiro waan dirna un bay ku oranayaan lacagta way iska cunayaan way Ottawa meel la qadaya ma badan sida annaka joogna meesha kala garanayaan lacagta dumarku khatiyaan bay ka taageen ragga gabraalkuna waaba shaydaan weyn isaga cawaalo ku shaqaysanaya cawaaluhu ma nin karti leh nin ciisalaya kartida ma leh isagu kartida ma leh ana kuuba kaaba ku shaqaysanaya waan ogaay laakiin maanta ciise way barteen waxa dagaal waxa arrinkaas wala hadalhaya city maaha waxa la yiri city maaha gabar yar oo guursanaya city inuu qaadaheed haduu ka dhashay laakiin isklaaji waxa uu daayay anigu maarta ka yare oo meelaha saska caayaan oo nin maaha saas u siibin maaha Kabral waa ninkii waxa weeyaan maxay ahayd ii sheegeen ragga maartay Belgiga Yunus Musa iyo Furlabe ninkii waxa weeyaan casuubadinay soo ninkii maaha horta ayaa qalb ku casuubadinay ee wadwaday soo maaha okay waxa weeyaan waa okay ninkaasna waxa uu sheegayaa iska jooji waxaad wadid shay tole markii dagaalku ugu jiray toban farmad uruneyn ka joogso waxaan la hadlayaa ummadda Ottawa gabdhaha la hadlay waliba ciise ka joogsado wala showgaasi waa lacag baa lagu urursanayaa waana beenlooyin waxa weeyaan rag lacag ururinaya ma haday ururinayaan markii bay lacag u dib lahayn nabadido ugaaska lacagtii lagu dhigay dadhabe soo waran kuma bixin soo Canada lagama dirin soo Sweden meel kasta lagama dirin maxay u diri waayeen nabadido barna cusbayaankay ka baqayeen barna fanaan Soomaaliyeed bay hayeen brother okay maanta maslax baa soo baxay maslax baa jooga oo u heesay city awaaladuna heestaasi joogso heestada ka dhig heestada la joogso waxa u sheeg waxa in loo sheego waxa weeyaan YouTube inuu soo dayn heestiisa la laabto ha u heeso maaragtay ii sheegeen ha u heeso maaragtay kolley imika nabadiyo waxa ku sheegaya awaalaadan ciisana ma haysto waa maslax baa haysta majartaankina waa kan iskalaaj baa ku diray hawiyiina fadxi ka badaa ku dirtay wax uu haysta ma jiro awaala maarta maslax waxa soo dhaweeyay diimil baa soo dhaweeyay 10,000 baa soo dhaweeyay airportka u joogtay marka haaska istaysiisanayo soo qorqoraya Xuseen maadaama nin Ciisa tahay adigu nin Ciisa oo Ciisa dhaleen nin Yunus Musa tahay raabtigana waa urweyne gabadha qabtidna waa dadkii dhabarka ee Ciise gabadh waxa qabtaa hollaa kuwa ku soo qorqoraya hollaad nacabtahay WhatsApp iska xanuunsan baa jira maaqsoonti aad u xanuunsan marka aan shaashada iga arkaan waxay moodaan Ismaaciil Umar inuu hadlayo maaqsoonti kuwa ku soo qorqoraya waa nin Ciisa anigu ku soco nabadido hollay aniga qabashada anu gabadhan qabo iska daa gabadha islaanteeda waa holle weeyaan waa gabadh Furlaba oo Maxamuuda aniga 9 hablood walaalahaya 9 hablood Furlaba wala qaba ciyalkayga aqalkayga imaada dad sabab wala Furlabe oo aniga madaxay saareen xagan magaaladana joogo waa wala Furlabe gabi waxa gacliya ay markasta soo dhaweeya waxa weeyaan waxaas waa hadal anigu ka xun wala qaban ka ciise doqonkee xun wala qaban nabadido in la qabto weeyaan إيش أقول إيه؟ لا عروضه مركا أولاً استاد الله نقطة مصلحة بوصل بحي هوينا ما هي سديد جرتنا ما هيستو ماتن عيسى ما هيستو عيسى مصلحة بها هيستا مركا هيستاد جوج كده وحلي هي boycott هلا صاروا حفلة ماشى لقوا قبنا العقد لقوا قرنيو وان مقلي هدي دونين مركوري وحي قفتان مركوري وحي قبيلهين
dhaqaalihii adkaa sabaax baan ahay nabadiyadu waad ogtahay lacag waxaan boorinay hal la qabto raggaas guusha markii la helay inay xaflad qaban raggaas ay lacag ku ursan guushi baa la helay xafladda qabanaysa si lacag ursadaan joojiye ka dharagaas hala joojiyaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xildhibaan xuseen qortaag buu xuseen qortaag ee dalka Sweden xildhibaanka ah walaalayaal waxa weeyaan tareenku markuu socdo dhinaca dambe lagama soo karo lagama soo karo gabadhan aan u guursanayo iyaan oran karayaa fanaan inaabti amba abti xabadow hees ii samee hees baan kaa dalbaday gabadhaa baan guursanaya iisoo hees baan oran karayaa city melos loo soo heesa maa city waa deegaan ciise nin waliba ciise oo dhiig lagu heesaya haddeed way dhamaatay nacnacad anis iyo soomaali weyn soo dhawaada anis baan ku bilaabayaa soomaali weyn anis no answer buu sheegay soomaali weyn markaa soomaali weyn waan kuu soo diray accept gare ku soco soomaali weyn accept gare waan kuu soo diray walaalayaal one unity ciise waa wada ciise nina caaram السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام جمعة مبارك سودو أديك إيو ونكا بتيجا سوما نكا هذا مغشى كوسو دو بالك كم ملقينا كوسو ميكروفون هذا سيدي مقشين هذا شوف يا عم بنكون ملقى سودو برنامج كمال سعتي aad baan ii salaamayaa barnaamijka waan la soconay anigu horta waxaan ku talinayaa kow waqtigan xaadirka danno ma aha inuu ciisu dhexdiisu iska qabsado cawaaladan laftigiisa mar hadan ciisu u sheegteen waa nin ciiso qaldamay qalad weyn oo ka Ismaaciil oo kale hoolay loobi karina ma ahina kor uga baxa anigu dadayda waxa fiican la isqabto waxaan tolnahay in la isqabto marka cawaaladan waa nin fanaana waqtigii loo baahnaa waa runo kama soo hadal arrimaha marka waa nin roolkiisii gabay inaan ku mashquulo maaha laakiin hawlo badan baa maanta noo yaala hadday tahay arrintii cundufiya cadaytu dhallinyaradii joogtay maxaan ku idhaayay cadowga kale sida sharci darrada loogu daray gobolladeennii afka uga galay hadday tahay iyo ka waaweyn baa noo yaala iyo waddankeena dhaqaalihiisa la guranaya inta marka anoo waxaa ku mashquulayn horta aad baan ii wada salaamaya dhegaystayaasha iyo odayaashaba marka waxaan leeyahay inniga laftigiinu dad fiican oo waxaad tihiin si fiican u hadla oo waqti loo baahnaayo cid kasta oo maxaan ku idhahay ciise ay gabanaysay baad hadlaysay abti oo nin wanaagsan baa tahay maxamed cawaale laftigiisu waa nin odaya anigu waxaan rabaa nin kastoo ciisihii inuu marka hore horta kor isku qaado au ka wareega katolkiya miskiinka ahee aan meel dheer eegayn kow ma jeceli waan ka xumaadaa laba nooc ciisoo jawaabaysaa meelahan layfka markaan arkay aad baan u nacabahay marka taa waa taa xagga waa raygayga tan kale odayga ma feedhe in yaroo suugaanaan galabta u hayaa oo isaga waana u noqonaysa waa siduu dawada lagu sheego waa kolba sida loo qaato abti yersub ma feedhe waa erey ka yimid cusbayaanka annagu haddaan ciisanahay aala buuraan u naqaana ma feedhe door baa keenay annagu aala buuraan abtu ku socoga sugaanta marka waxaan leeyahay adeer aala boorow addoon doqon baa tahay xiniyaha waxaa lala tagaa xero shisheeyaada xigtadaadii iyo laguma dayo xubin walaalkaaye haddaad si xoolo bilaadan iyo booli doonayso bilan geela daaqaa biraha lagula daatahay oo ku badhaari maysida ifkaa bila lamaalaa bartii aabbihii baruur weyn oo biilaad lahaydeen ma dhigan baanka reer yurube bakti cuna jannada aakhiru biri ka qaadin marka waxaan leeyahay abti mar kale ku soo celi marka waxaad doonto mar kale abti ku soo celi adeer aala boorow addoon doqona baa tahay xiniyaha waxaa lala tagaa xero shisheeyaada xigtadaadii iyo laguma dayo xubin walaalkaaye ninka xoolo bilaadan iyo booli doonaayo bilan geela daaqaa biraha lagula daataa ku badhaari maysida ifkaa bila lamaalaa bartii aabbihiin kama kaxaynaya baruur weyn oo biilaad lahayd baanka reer yurube bakti cuna jannada aakhiru biri ka qaadin سلام سرابت سلام سر aad baan kuu salaamayaa laakiin alow may maqashin abti si fiican baa ku maqalnaa abti ku soco oo ninka kalena u dhiib waa nin loo baahan yahay inuu hadlo Soomaali weyn isagana u dhiib abti markaa dhammaan waan u dhiibi
inkastuu sanado badan aan wax reebayn ku xukumay dil iyo boob kala baahsanaanta loo beegsanayay waxa ii bishaaro ah baga dadkaygii inta aanu baabin hadduu soo baraarugay 100 sano iyo dheeraad hadday boholaha dimiya ku dhaceen ba iyo hoog waxa ii bishaaro ah ku balama ayaamahan inay baadi doonaan bariyo waxay ka seexdeen xaqii baa bislaado dulmigii godkiisii alla ilaahay biyo u gale dhalin barbaartuna bilad bay mutaysteen hawshay bilaabeen waa hadaf bislaaday farxad iyo bishaarada anna waxaan ku biirsaday farxad iyo bishaarada boqortooyo guun iyo libaax baariyaan nahay maalintii birtumashiyo xumaan loogu baaqana baaruudda qiiqdiyo golxad iyo bilaawiyo hubka bidixda saarto u badheedha geerida baga dadkaygii inta aanu baabin hadduu soo baraarugay marka ina cumar wuxuuna tusay inuu doqon yahay unbuuna tusay taariikhduna weligeed way isqortaa qofka laba un bay ka qortaa inay beeshka madow lagu qoriyo inaa kacad lagu qoro marka tuu isagu isku qoray waan la soconnaa ninna necebna waxba nagama qaadi karo ninna jecelna waxba nagama qaadi karo waxaan anagu iska dhigna un baan ahaanaynaa had iyo jeer anu ereygaasaan iyaan jecela inaan isticmaalo waa mid ciise dadka kala gurayii waa dad ismaaciil si bilaa bishaara ugu shaqaynaya haddaad aragta nin le ree hebel baa wax naga dhiyo ree hebel baa wax naga haysta adeer dadkani waa dad isku dhiig iyo isku dhug iyo isku dhaqan iyo isku dhalasho ah marka waxaan leeyahay qofkana kala guri si aan toos ahayn ugu shaqaynaya abti taa waa saxay abti tii waxaad ku soo celisay cishadii hore aad ku soo gabagabeena annaku beel weyn qolada badan iyo qolada yarabba dad isjecel baa nahay oo beelu isjecel yihiin maalintii ugu horeysaan ku soo qabtay gabagiyaad abti ku dhifatay bal taana ku raaxaystay iyo shicibkee dad badan oo iga codsadeen markii hore bal taa abti ku soo celi adigoo raalli taasi waa suugaan si maxaan ku idhaayay cilmiyaysan loogaga sheekaynayo dhaqanka ciisiya wuxuu ahaan jiray marka waxay ahayd haddaan asalka taariikhda qoran isirka sooyaalka haddii aan ogaan xaajada nin yara iftiinsho oo nii akhriya waad fajiciin adeeray dad awowyadood uga tegeen aya dhaxalgala oo xeer in badan jiray ku dhaqan baan anagu nahay dunida oo umiyo baadiyoon dawlad booqon ayaan baarlamaan adag lahayn oon ilbax ahayn oo inoo ansixiyeen dastuur aabbayaashiyo qaynuun islaamnimo barkaday diinteeda aad loogu fiirsaday waxgarad uu rushay waayeelku irbad kama tagee u xaqashay walbayskii oo ay xaliil sale aqalaa dhigay ismaqalka iyo waqadu waa ayad noo qoran ismuquuninta ceebahon kaba u foonnaa qolyaha aad u badan ee kuwa yar baa annaga siman isjacaylka beelo wuxuu jiray abiidkii waa ubad walaalaa bulshada kuliya diirkeed irdago ay dagaal aafa dhigay dumara say qaaday iyo arsi laba qole dhexdooda oo hindha xalsiisa aafada qabiilka iyo fidnadooda kufaankeyga alla magana waxa baajiyaa soo isaga maaha hadday imato waxa lagu daweyn soo isaga maaha marka waa gabay taariikhda galay oo maxaan ku idhaayay si cilmiyaysan loogaga hadlaya ciise wuxuu ahaan jiray iyo halku maanta joogo laakiin waa la wada og yahay wax ma aha cid kale nama soo weerari karteen waa annaga dhexdeena waxa dhibta isku hayni taasi ka dhamaanaysaa dhowaan waxa dhibaatooyin intaa ka waaweyn baana soo maro maalmo waxaa jiray qaar taariikhdu haddii maalmaha qaar lanaga badin lahaa oo dagaal lanaga guulaysan lahaa ay dhinaca kale isku bedel lahayd oo maanta magac ciise la yidhaahdo baan la maqli lahayn baa jiray marka maalmo sida nagaga adag deen baan leeyahay cadowgaygu sidaa hawla socdaan waan intaasan kusoo gabagabaynayaa abti allah ku sharfiyo allah ku sharfiyo waana soo sanahay laakiin abti inigu dhexdii waxba isku jawaabina inta ay cadowgu shisheeyuhu au hareeraha naga haysto waa marka dambe aan isxisaabinaynaa keena doqonkii iyo keena kale waxaa jira golo gaaro wax layskugu sheego tolka ama abtaan waxa waan ka ballaaranahay abti taa waan ka ballaaranahay abti awalweli waxa waan ka ballaaran nin ka ballaaran baana waana ka dhabar adagahay abti don't worry about it aka walwelin abti aad u maadsantahay Soomaaliya wax ma ku biirsanayaa Soomaaliya wax ma ku biirsanaysaa Soomaali weyn waan sii daayay dad bay sugayeen arday anu waxba kuma biirsanayo horta waan islaaman dhamaantiin moogtaa waan kaa qaaday awaalkii baa dee ismaaciil timir aad la moogtaa hay odayii ismaaciil noqday timir aas taalo qofkii yimaadaba uu cunaya marka maanta anu waan ka qallaynayaa miskiinka ha daadiisii iyo caydiisii baa isku dhammaato odaygu waxaa ka soo hadhay imika inuu ciyaalka ku yidhaa facebooka gacmaan isqabsanaynaa kolkaa khayr baa kuu rajeynaya waan isoo wala salaamaya ciise ha noolaado midnimada ciise ka shaqeeya walaaltinimada ciise ka shaqeeya dhalinta ciise gacmaha isqabsadaan haweenka ciise dhammaantood gacmaha isqabsadaan ciise waa dawlad uu dhaafay dhul ballaadhanna uu fadhiyaa ilaah baana awood
afartankaa milyan ee oromada xitaa idin baan u samaynaynaa iska daa kuwa kale durus baan u dhigaynaa durus ruush iyo maraykan nama jebin soomaalida kalena waan jecelaanaynaa intana jecel laakiin intana jeclayna maalinteeday dharbaaxa libax ku dhacaysaa aad baan ii wada aad baad u mahadsantihin ninka aad u gabyayey suugaanada iyo waxaa gabyayey waa nin artigaya aniga walaaldoona ninka kalena waa nin aniga tolkaya aad baad u mahadsantihin gabayaasha tani ciisaha midayntana dad badan way codsadeen aad baad u mahadsantahay abti anoo ku sharfaya aad baad u mahadsantahay dadkan soo qabanaya anis haye ku soco anis ku soco anis accept gre waan kuu soo diray accept gre السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مبارك صاحب مقاش أنا بديله. عنتاي سيدتاي سيفي يعني نادر كوسعو برنامج كله صعتي صوما نادر سيف عم برنامج كله سعودي برنامج هذا ما بدافعني. horta salaamaya beesha ciise weyne ee tolkay ah meel walba ay joogaan salaan goweyd bana hawada idin soo marinaya walaalkiin aan baynadeerkiin waxa idin la hadlaya horta inaan qodobadeeda intaan dhex gelin waxaan doonayaa nabadiidow fursadda in ay siisid tolkii aan kula hadlo oo xaqiiqada kula hadlo oo guntaan u sii dhaadhaco dhageyso inaadeer dhageyso fursad waan ku siinayaa wax kale kama hadli karaysid wax barnaamijka waxa adoo raaliya barnaamijka waxaan ka hadli un baa inaad ha barnaamijka ma dhaxbaxayo kama dhaxbaxayo naadir barnaamijka waxaan ku siinayaa adiga 5 minute ku soco horta waxa weeyaan horta waa saa sheegteen weeyaan maad garatay ilaahay waxaan ka barayaa yaana dadkeena Djibouti degan ma aragtaydaanay waa ina Cumar waxa isku diraaya أول حسن قولي واجي حسن قولي ولا ولا دقنا وصفي عن بحلو وضع عنايي ولا إسجعلا عدة دون تها نقطة ريركو دونها كذا شو ولا شو وضع جعلا ما قرت لكن إن عمر بعد ضدك إسكهر كينايا أو ضدك إسكو درايا أو مدح إسكو قلنايا مركا وحنا لا هاي إن عمرو أننا ممتشيد ما سن ممتشيد يعني جيلب كما ماسن يعني على عبد الرحمن اللي هي مما تشيد waxaan tolkay ciise weyne 12 aqalbu kamid yahay mamaasan waxaana ka codsanaa yaa tolkay ciise weyne ma aragteedaanay inay iyaguna tolkood amba imaadeeradood beesha Cabdiraxmaan ay iska dheereynay soo dhaweystaan maxay ahaydaan anagu ma rabno in oojeena ma matalo waa inaan ka soo horjeedsanaa waa inaan sameysnaa urur beesha Cabdiraxmaan ceelaya kamid tahay oo muujinaya inuu Ismaaciil naga tirsanayn anaga ما إنك ترسنين هذا إسماعيل مركل غير ممثل إنه نجتر سنين والله ويقدر البضتي وحن أمق ليودن ويقدر البضتي نيكاس مماسن ممثلو نممثل أنجا نمنا الشيغان كرو وإنا سميسنا أورور ما أركتي كسوهر جيدا أنا قلت تلكود نعم منهن أنا قلت تلكايا كل حجرنا أمر كوغان قادنا ونجعلنا هاي تلكايا لبيه طبعا كقل عدو دونا كهذا ماذا رايا أنك ما مثلوا إن هذا الميدان كل شيء واحد والله ساسي إيموشنال ما قصنتي ها بيوان أنا بحسب مركان أركو جيدا ياس كسر جيدي سوسة جماعة waxaan waa game ku doonaya Ismaaciil Umar Gelle sida uu hadlin naadeer waa emotional sida uu hadlaysid annaku dadkuna way afartan reeraaga ku nool ee cudurka mamaasan nacaybku uu ku dhacay hawarka sida uu hadlayaan mamaasan waa Ciise taasa raba anigu ka hadlaya ana ku orayna dawran karin waa Ciise mamaasan Ciise ana maanta mamaasan baa ugu liita oo dhulkiisa badna ku horama la raaciyay waa run ninkaas dabarka naga jabiyay ninkaas waa dabarka naga jabiyay naadir hadalkayda Ciise inta Ismaaciil Umar Gelle nacabyin in ka badan baan anaku nacabnahay anakoo mamaasana adu nin waxa tahay badaraxaan oo cawra ana nin la gadiidanahay صح Ismaaciil Umar Gelle anaka ka nacab Ciise oo dhanna way ogyihiin inaadeer afarta qarmuunka ee cudur mamaasan ku dhacay alxamdulillah anaga muhiimaddu waa intaa weeyaan in ninka anaga madaxana loo saarin ninka anagu ma rabno ninkaas waa xabashi weeyaan ma rabno nabana matalan anaga
ninkaa aad iyo waxaan aad ka inaad necebnahay ifka ma jirto afarta qof ee dabadhelifkee magacuba ideeq ku raacsan maahine annagu manu jecelin annagu sharaftayada ma rabna inaan dilno ma rabna inaan dilno ilaahay ma aragteedaane bogogana burcad isku mariyo odagaa xune cirada le mafeedhahe ee reeraha isku diraaya wada dhashee wada nool ee tolkiina iska dheereenaya si ay dadku madaxa isku gelinayo anagu waan diidna waa len caawi beriba tolkaaga waan caawinaynaa waxay u baahan kii gaajoonaya gaajada waan ka saarna ilaahay ka sokow kii ceel u baahan ceelka waa loo qodi taasi kama dhigna waa qabyaalad waxay ka dhigan tahay waa qaraabo ilaahay baan nooga dhigay maxay haydaanay nooga dhigay amar inaan qaraabada xiriirino inaad sax inaadeer anigu waxaan ku leeyahay thank you waa mahadsantahay inaadeer maadaama kaa maasantaa naader wax kaloo ku darsan ma hayo dadka kala soo qabay naader sax inaadeer aan ku sii dayn inaadeer aad baad u san tahay si waxaad u hadlaysaa emotional waan ka helay inaadeer waa caadi ciise wax waliba way ogyihiin ciise cumar geelle uu matalo ma jiro ismaaciil cumar geelle waa ninka tolkii baabiye waa ninka qabiilka ugu horeeyo ismaaciil cumar geelle baabiye waa mamaasan weejaan qof waliba ay garanayn inaadeer afartan qarmuurka ee cudurka mamaasan ku dhacay inaadeer meeshaan joogaba edmonton way jiraan أنا waxaan ugu akhriyaa yaasiin baan u akhriyaa wajacalnaa bayna aydihim saddan wa min khalfihim sadda faaqshaynahum fahum laa yubsiruun ilaahu caafi dadka marka allah caafiyo in adeer waxaa ka walwalin one unity ciise oo wada ciise nina caara ma dheero aad soo dhawaada walaale oo nina soo qabanaya meel kasta dhawaada mikrofon igaldi soo qabso walaalo ku soo diray يقلد مثل هاي اوكي ولا الوقوس ودري سوق بسه بلام دي جيبوتي كوزا اي صدر ده اي صدر انفيتيشن كاي صدروا وام كو اكسبت جراني ما عارف قف كان اندري ما قبنا عاشا اسماعيل شو مد بقى يغسل السينة حكو لي جامنا بالدين اصلا شو ما ماسك كلها والله وكوس وجيدون والله قشيغن والله وكوس وجيدون والله يمشي كاميرا والله وكوس ما ودي انا مشاكل ادور دينعان جوجو قحوتياد قولada dadka ciisaan ugu diray qurunka iyo baktiga aaminsan waa adigoo kale mayda waxaad ku leedahay vivi ismaaciil cumar gelle adeerka ha noqdo de maxaa ku haysataa adeerka وايا وادرك ورس واقن دك سلام ninkan store baa la yidhaa waxa weeyaan waa nin aniga adeerkay sheekh cusmaan warey ibraahim isaaq dadka garanaya nin munaasana warey cigaala markaasi wuxuu taageersanayay ismaaciil cumar gelle iyo curad u yahay gebi munaasa ku dhan reejibutu dhan buu yahay annaka noomaade unoo yahay maxaad ku haysataa kanada joogtaa waa shaqaysatahay maxaa kuma haysto de maxaad ku amaanaysaa maxaad ku amaanaysaa ismaaciil cumar gelle waa madaxweynaha geerisi iyo qarbad dadar iyo bulxaar gaaja dishay waa madaxweyneyna de iyo madaxweynuhu markay saantiisu qaadaysa xoolaha hargeysa burcad geynaysa maxay astaghfirullah muxuu dhisi lahay dalka oo dadku gaajo ugu nool yihiin ciisu soo wadaa goortuu soo wadaa 90 kiiloomayr dalka ka taliyay war wax loo duceynay ma jiro wax adeer RBB taageersantii waa adiga ikhtiyaarkaaga nimba choice iska leeyahay marka munaafiqnimada ciisadon sana ka maqanta wadanka maxaad ka garanaysaa wadanka iyo wuxuu ismaaciil cumar gelle sameeyo ilaahay iska daay waa nin mumaasanaad ku leedahay alxamdulillah oo shakhsiyadaada annagu ilaahay naga qaadan leena habar qaba okay walaalayaal soo qabsada ibraahim yuusuf number choice fulay إبراهيم يوسف صح السلام عليكم الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبديد جماعة مبارك وكسلام مدح سرا أنا وحنا
yaadka joogta ardayda halkaa ku bartaanahay yaa inaadeer waan ku salaamayaa aad halkeed joogtaa halkeed joogtaa ardada turkiga haye inaadeer waan kaa qaaday salaamu calaykum jimco mubaarak waa ku salaamayaa inaadeer barnaamijka maa la socotay inaadeer aad iyo aad baan la socday waa run saa sheegaysid geesi ciisaha u helinayaa tahay jiro joog sidaa usii wad cundhufo caddayntu waxa oo dhan aad iyo aad baan la socdaa biyodiyayaasha adiyo maxamed cawaale igu salaam madax sara waa nin geesiya ninkaa maxamed cawaale waa qore aad iyo aad wallahi maalin walba waa sii baartay ardaydan waa sii gaarsiiyaa waa ka raggaa baa jira mayna ragga waa rag jira macan marka xawaalada diraysa waa la soconay aad iyo aad waan ku salaamayaa aad iyo aad السلام عليكم وما صنت جزاك الله خير أيين هذا أيين هذا وما صنت هذا ونقول بلن مالين يا درار إن طلق أوهي لنا طلق قرب جوكسنو رانك عيسى وبحيا مركا نبدأ choice بولي نبدأ نكو أميسين ياي choice بولي عقتي وران دري واحد دتك وش يا نو دري عنده فوق والله بالله EMP da BRPP da dadka ku jira haday Mareykanka noqoto iyo hadii ay noqoto Canada ba door ilaa waan ka qaaday 500 marka waxa doontid aamisnow Ismaaciil Umar Gela aamisnow uu ooy Ismaaciil Umar Gela aamisnaanin ma maasan nacayb waxa doontid wardan guuduna isku weeyman danta Ciise isku weeyman Ilaahay Ciise ka dhigay Ilaahay aan Ciise iga dhigay wareefa waxaan isku haysano geed baa jira geed baan ku kala baxaynaa yasid qaranka tolka bixi wareeba ilaa ciisu ka dhigay qaranka tolka bixi tolkeena aan dirno waxaan isku haysano tol weyn baan ka dhalanay xeer baan leenahay rag kala baxaanahay appel ka baana kana naga bartay geedka labaad geedka saddexaad finaalku waa geedka 12aad saaba lagu kala baxaa aad iyo aad walaalayaal waan soo qabanaya enough time baan haystaa soo dhawaada okay عاشا إسماعيل عاشا إسماعيل سوق بسوالال وقو صدره ليه عافية نسوينا برادر فوفانا وانكو سوق بني فيسبوك كبح او ديبو سوقلو باهشيري eegista dhinaca yar taabo waan ku soo qabanay brother markasta soo qabaatira markasta soo diraan ka yiraahdo meelaha invitationka kama arkay brother soo qabso waan ku soo qabanaya qof waliba soo qabanaya qof waliba welcome waan soo qabanaya hadii kala foofana hadda doonaysid inaad heshid brother iga soo wac nabadiid Cumar Facebook iga nabadiid Cumar dhinaca ka soo qabanaya amba nabadiid Cumar iga soo wac messageriga waa ka soo qabanaya okay connection file gabadhii way booday okay Yunis hay ma soo qabsaday soo baan ku soo diray okay u ka go'ay I don't know dadkan ma Afrika joogan fahmay connection kooda give me the coffee please bila waan ku salaamaya ami don fons ciyaalkii xaafada kartikaad shodhaagi ku salaamaya shodhaagi okay Yunis waa markaas soo qabanaya atomo waa taas ma samna
okay kana waa denied I don't know why invitation igu soo diranaysa hadday denied okay qoyaan maxamed cawaale soo qabso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته odaygii muxuu leeyahay odaygii war fiicanaye astorow maxaa dhacay astorow حمد هنا ذروته ما شجرة ما أروى تسمع ما في waa run maahay sida laga daa qabiilkaasi waa waxa la dilay weeye laga daa qabiil laguma taageero qof odaygu waa adiga arkaya dadkii gaajaalaysay dalkii gaajaalaysay waa hora kugu dambaysaan u bananaya dalka dadka ka soo hadlaya dalkii ma garanaysa may subjectgii baan galaya maalin kale ka doodaynaaye nabadiid igu celi nabadiidow waxaan subject baan ka hadlayaa maye socod ismaciil marga subjectgii hadeer baan maaragtay doonayaa inaan ka hadlo nabadiidow qofka biniaadanka xornimadiisa waa la ixtiraamo waa xor wey wuxuu isagu aaminsan yahay iska aamin si fiican baa lai maqlaya ma good ku socdo dadku ku sugeen ba ku socdo waxaan doonaya walaalayaal madaxweyne ismaaciil cumar geele oo ku magac dheer alaboore wuxuu yidhi cishadii dhaweetay baan rabaa inaan uga jawaabo si xushmadi ku jirto si ay ku jirto caqliyaysan baan rabaa inaan uga jawaabo wuxuu yidhi ta ugu horeysa wuxuu yidhi qabiil bay niman dibadda jooga ay noo keeneen buu yidhi waxaan leeyahay madaxweyne qabiilka adiga ugu horeeya isticmaala iminkana nabadid uu ku tusay ninka wasiirka tacliinta ah oo qabiilkiisa ku faanaya hadday kaa daacad tahay aad qabiilka si aad sheegaysid aad necab tahay ood qabiilku uu xun yahay kaabaad eri lahayd laakiin maad eriyin hello I don't know uu go'ay maxamed cawaale dib baan usoo qabanayaa ma arkay baa maxamed cawaale maxamed invitationka ii soo diro uu kaa go'ay kolley telefoon baa soo galaa ka filaa qoyaan maxamed cawaale waa run waa siduu sheegayo haddii ismaaciil cumar geele daacad ka tahay qabiilku horta ninka wasiirka welina waxay ku leeyihin isagaa soo qabanqaabiyey madaxweyne ismaaciil cumar geele iyaa soo qabanqaabiyey ayay ku leeyihin marka hadday ismaaciil cumar geele daacad ka tahay mudana madaxweyne hadday qabyaala daacad kaa tahay dadkii walaalaha reer jabuutiya sare dhashaad kala geysay haddii arrintaa daacad kaa tahay madaxweyne dee maxaad u ordisiin weyda kan eeg madaxweynaha jabuutiya ka dambeey ku leeyahay kambeski ayaa wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mustafa maxamed maxamuud loogu qabtay munaasabada casuumada ama martiqaadkan ayaa waxay ahayd mid ay u fidisay wasiirka beesha dulmiyada sheekh isaaq oo uu wasiirku ka soo jeedo munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa kasoo koobnaha iyo dadka ka socda assalaamu calaykum waxaa ku dhacay man garanaya baalkii uu naga gogaya adigu xitaa qudhaada laguma arkayo nabadidow madow baan arkaya waa kan imika ma arkaysid I don't know maxamed telefoonka wax ka khaldan yahay anu dadku way arkaan hade waa telefoonkaaga baraader uu kaa go'aya aniga dadku way arkaan dadku way arkayaan kuusan waa cadaaladiin dadku way arkayaan in adeer dadku way arkayaan in adeer maxamed waa telefoonkaaga baraader no answer buu sheegayaa waa telefoonkaaga kuusan believe me it's your phone aniga maa kayga no answer video buu sheega request maxamed waa kaagaaga baraadeer keegayga maaha waa dhinacaaga maxamed cawaalow waa dhinacaaga saaxiib aniga dhinacayga maaha dhinacayga maaha okay soo layma arka aniga soo layma arka ma lay arkaa aniga ma lay arkaa tolkayo ma lay arka aniga ma lay arkaa tolkayo bal ii soo jawaaba hade aniga waa lay arkaya
okay aqoonyan maxamed cawaalow laguma arkayo okay bal iminkaad soo dirtay waan eegi maxmed telefoonkaagu iminka uu galay brother aniga si fiican baa la arkaya iminka lagu arkaya nimadid hadeertoo laguma arkayn laakiin de waxaan fahmi waayey mar kastaba markaas soo galaba wuxuu leeyahay leave as a guest to bigala wii tuuraya waxaan la yaabay mugsood waa dagaal waxaan la yaabay hadda facebookgaygina waan tuuray facebookgaygana waan ka saaray hadda markaan wala hadlaynana waana na kala tuuraa marka hawluhu way iska badayn allah sahlay insha allah allaha sahlo marka waxa weeyaan antoonkii baan dhex socdaayo inaan baaburadana iska ilaaliyaa mugsood marka waxa weeyaan wuxuu yidhi ta kale aan aad ula yaabay wuxuu yidhi madaxweyne wuxuu yidhi ku faran ba usoo dirayaan buu yidhi bal siduu dadka u yaraysanaya odaga inuu wax ku dhaceen ma garanayo ku faran yay faamiga usoo dirayaan reerkayga unu geey bay odhanayaan buu oo yaa kaloo loo geyn lahaa reerkiisa qofku marka uu usoo diro $100 baa u yara ku faran maahe $100 waa 17,000 iyo 700 adi ilaa 800 oo faran weeye de hadduu usoo diro ku kafaran ba adiguba kasoo qada uu yaraysanaya ila isagu lacag u lahay buu ku dambaashaa hadduu qofku dadkiisa usoo diro ceebtay leedahay oo waay aad ceeb uga dhigaysaa qofku dadkiisa hadduu caawiyo reerkiisa ila adigaa gabay adaa shaqadaadii gabay oo dadkaasi haddayna gaajoonayn dee kuma kalifteen qofku inuu reerkiisa uu wax usoo diro marka waxaan ku leeyahay waan kusii dayn askari baa iga dambeeya haya iska soco dadka waan iska fasaxay khalaas hayo way walaalayaal ninka waa cadow ciisi waxaa la samaynayo lacagaha la qaadayo ee la dirayo ma arko lacagahan dadka beesha ciise weyna ka qaadayno tolkeenaan ka qaadayno aan tolkeen u dirayno iyaa dhibaysa qadraxid meesha ku dhalatoo kale bayrka iskoollay ka dhistay iskool bay ka dhistay ubuk iskool male liisee xataa male ubuk waa ninkii arkayay waxba male dhakhtarra male qalabayrkana dhakhtarra laga dhisaya markaa kule nin mas-uula haddii qabyaalad gasho cudur weeji saantaadii baaba ku dhaqmaysay iyo adaaba ku dhaqmay meeshii oo dhan baa tolkaa ka dhigtay adeer maxaa dhacay annagu waan sheegaynaa runta sida kuwa manin ninay isku qabiil yihiin haddii ay wax ka sheegaan way xanuustaan waxaan wax uga sheeg annagu ma xanuunsanayno alxamdulilah caafimaadku waa wax fiican markaan ameenkii seexanaynana qofna caloosha kuma qabano rasuulku xadiisi calayhi salaatu wasalaam iyaa yidhi wuxuu ka sheekeynayay jannadu ka sheekeynayo nin baa soo galay ninkii intuu soo galin buuri waxaa soo galay miskiidka buuri qof ahluljanna miskiidka soo galaya buuri markaa raggaa magacdoodaan garanayn maadaama xadiisada si fiican u dhageysto nin baa soo galay gar weyn oo sacuud ad magaciisaan xasuusanayn waan ka cudur daaranaya magaciisa ninkii baa soo galay asxaabii way eegeen haddana rasuulku xadiisi calayhi salaatu wasalaam maalin labaad iyaa rasuulkaa yidhi nin baa soo galaya miskiidka oo ahluljanna ninkii unbuu noqotay ninkii ay cishadii hore arkeen unbuu noqday haddana maalin kale rasuulkii oo xadiisi calayhi salaatu wasalaam iyaa yidhi waa nebi maxamed moodayaan ka sheekeynaya wuxuu yidhi nin ahluljanna ayaa soo galaya buuri ninkii unbaa soo galay nin baa cudur daartay ninkii uu ka tegay waa nin oo inuu isagu ninkii cudur daartay uu martigeliyey ninkan laleeyahay ahluljanno amba ninkan ahluljanno laleeyahay inuu martigeliyey yaan jeclahay okay ninkii martigeli buu ka yidhi waa israacin gurigiisii bay tegeen ninkii wuxuu eegayaa ninkanuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ahluljanno
muxuu nagu dhaafay iyuu doonayaa inuu ogaado ninkii buu u fiirsaday ninkan hameenkii ma sameeyo dee wax dee ilaahay aada lagu caabudo iyo waxa ma sameeyo waa nin soo wadi doonaa wuxuu rasuulku yiri waa ahluljanno ninkan uu weysaystaa markuu salaadiisa caadi buu iska tukadaa hameenkii markuu ninkan seexanayo markuu qofku seexdo u isrogaa astaghfirullah subxaana allah walxamdulillah ula u isrogaa salaada subax markay gaadho caadi buu iskaga tukadaa ninkii 3 cisho markuu martigeliyo u fiirsado waa nin oo buu ka yidhi rasuulka ayaa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam 3 buu rasuulku xadiisaya ahluljanna tahay markaa nin oo intaan kula joogay meeshana dee wax dhaafsan aad waa maxay dee maxaad samaysaa markaa ninkii wuxuu ka yidhi ninkii lasoo martigeliyey wuxuu ka yidhi anigu qof islaama oo aa shahaadanaya isma haysano oo iskuma dhacsannihin markaan seexanayana qof islaama aan caloosheeda ku qabto ma jiro warda nin oo saabaa nagaga badisa buuri marka insha allah annaku mar waliba aanu saabaanahay aan ku fukiraa shakhsiyaanteeda qof islaama inaan caloosha ku qaban qof islaamana inaan dhibin annaka saaxiibkeeba aad iyo aad walaalayaal aqooyaan maxamed cawaale ay soo qabay geeri bal waa soo السلام عليكم. عليكم السلام محمد إنا تقدر الغسين waan joogsaday meel baan joogsaday arrinkan waa arrin muhiim ah inaan ka hadlaa meel baan joogsaday warqadihii aan qortay baa maaragtay aan soo qortay baan xitaa la soo baxay marka assalaamu calaykum walaalayaal iga raalahaada waddaa socday horta wuxuu yidhi ta ugu horreysa wuxuu yidhi qabiilku waa xanuun buu yidhi dee qabiilku hadduu xanuun yahay isagana wadeen ta labaad wuxuu yidhi dadka reer Djibouti buu yidhi qaar dibadda joogaaba iminka la baraya buu yidhi qabiilku wuxuu ka dhigan yahay taana waan soo taabtay adiga isaga idinba wuxuu ku doortaa qabiilka wuxuu ku doortaa qabiil buu ku doortaa jagooyinka teeda saddexaad oon doonaya oon aad aan uga yaabay oon islahayn isagay ka suurtoobaysaa wuxuu yidhi xaaraanta buu yidhi qofka cuna buu yidhi xaaraan wuxuuna lahayn qaada oo cunto siiso caloosha gasho buu yidhi xaaraantaasi buu yidhi marka taa kama jawaabaya waxaan u daynayaa taa shacabka reer Djibouti iyagu ha ka jawaabaan cidda xaaraan ku nool iyo cidda maaragtay xalaal ku nool waxa iyagu ay ku nool yihiin inay dib iskugu fiirsadaan maan leh waayo waxay sheegaan madaxweynuhu wuxuu sheeganayay maalin la wareysanayay wuxuu yidhi wasiirada aniga iga mishaaro badan buu yidhi wasiiradayda iga mishaaro badan buu yidhi de xoolaha intaa leeg iyo xooluhu ubadkiisa u furayo warshadahana la furanayo xagee ka keeneen ma xalaal baa mise waa xaaraan shacabka reer Djibouti hataa u deynaya wuxuu ka hadlay qofka shakhsiga buu yidhi ee meel loo dhiiba inuu qof kale uu maaragtay waxaa la yidhaha favoritism iyo nepotism baa la yidhaha nepotism iyo favoritismka haddii la samaynaynin inama yaroo dhalinyara iyo cishadii dhowtuu meesha joogay u kala eexanayaba inama yaroo meel joogaa loo kala eexanaya mid qabiil baa loogu eexanaya jirkaa loo soo meedhay dhar baa loo soo xidhay suud baa loo soo xidhay weliba suudad ka waaweyn baa loo soo xidhay kaadoo buu kuu keenay kaadoo loogu soo dhiibay haliyad buu kuu keenay isaga idiloo madaxweynihii dalka ah inuu haddeetoona la maamulayo isaga waxaad ku garanaysaa ina yaroo daydaya oo biyahaasi waxa laga iibinaya si aad sheegaysid baa qubaysan xagga reer koonfurta aan meedhan yuu u soo joogsaday garalow wuxuu ka shaqeynaya banandoshin waxa lagu eriyey vol baa lagu eriyey maxamed dad iska baadiyaa jiro dad iska waaweyn oo gaboobay markay konton kun doonayaan
konton kun baan doonaynaa bay ku oran jireen 20 kun buu ku darsan jiray ma ogsoon tahay isaga aniga afkiisa yidhi isaga afkiisa yidhi taabaa lagu lisansiyo lagu ergey isaga afkiisa kugu sheegayba waka marka de waxaan weydiinayaa madaxweyne ismaaciil cumar gele waxaan weydiinayaa wuxuu yidhi de reseau socialkana xarfad ba xariif baad ku tahay xarfadda waa xarfade xarfaddaasi maxay tahay facebookga wax la qaado la dhigo wax macnala maaha laakiin annagu nagu dhaga hadlayay annaguna nagu dhaga hadlayay waxaa maanta nagu kaliftay inaan ka jawaabno anigoo jeclaa maanta inaan u fadhiisto oo hawsha ay igu badnayd oon u fadhiisan kari waayey haddana ilaahay fursadda ay dadka walaalaheena na siiyeen waana soo gaabinayaa waxaan jecelahay walaalayaal inaan maaragtay dadka aan tuso madaxweyne ismaaciil cumar geele inuu isagu iska yeelyeelayo waxaad ku garateen inuu iska yeelyeelayo waxaad ku garateen qabiilka adigu aad tusaysay dadka qabiilka wada isaaqo reer jabuuti meel bay tagaan hotel ah calankii mataqaanaa mexikaagay maaragtay ay meesha ku lulaan weliba maalinta ay leeyihiin waa maalinta xuseyne 18 May iyaga oo dalkiibaa reer jabuuti baa nahay waxay yidhahdeen qoomiyadda somaliland bay isugu yeedhaan qoomiyadda somaliland bay isugu yeedhaan marka kuwaasi qabiil ma wadaan iyaga qudhooda lacag bay ka ururiyaan jabuuti waxay yidhaahdeen waxaan u diraynaa saylac waxaan u diraynaa hargeysiya iyo maaragtay gabiile iyo marka iyagu qabiil ma wadaan mise isagu wuxuu arkayaa kuwa ciise dadkooga wax u diraya waxaan maanta aan u sheegayaa belbele xitaa qudheeda nabadiid waa lala soo hadlay dad baa ku dhibaatona ku gaajaysan iyo reeraha la soo hadlay oo la heran qadayn waxay dhahaan maalina qado waan helnaa maalina ma helo nabadiid kuwii maarata kula soo xidhiidhay kuwaasaan imika u ururaynaa laakiin hadday ka daacad tahay isaga waxa uu sheegay uu dalka maamulo anuma uma haysan inuu dalka maamule inuu raashinka dadka u geeyo isagoo xaggaa fadhiya iga raali isagoo xaggaa fadhiya nabadiid yaa raashinka itooyo la guro yaa raashinka itooyo laga guro jabuuti yaa hargeysi iyo la geeya gabiilay marka taasi ma caadi ba iyaga isaga marka ma u caadi ba kani wuxuu yidhi intaad mataqaanaa meel kale aad wax siinaysid ka jaarkaaga askara kaaga dhow oo iyagu markaa inagu maxaad hargeysiya iyo loo geynayaa gabiila raashinka iyo dawooyinka iyo kuwa belbelaha kaaga baahan kuwa heejadaha iniga baahan kuwa maxaad u siinayn marka maxay tahay taas mudane madaxweyne ciyaalkii waddankaa u soo kacay indhaha u furay sidii hore dadku maaha beenbeenta dadka ku maamulaysay iyo munaafiqiin aad samaysatay oo basaasiin kuu soo basaasayay maanta waa lagula xisaabtamaya xisaab xil male adeecaddii yarada bugtee mataana erteydadeed inigu meesha ku haysateenna maaha maanta adduunyadan idin tusaya waa laga iftiiminaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamed cawaale erteydeeda isagaa fura kolba maqaaxi buu furaa kolba dukaan buu furaa madaxweynihii dalkaa dukaanka furaya madaxweynihii dalkaa maqaayadda furaya madaxweyne inay ku dhibin qabyaaladda adigaa ka koowa qabyaaladda adigaa ka koowa siduu nin yaroo haddeeraan soo qabtay maxamed kolley biisi baa aada nin wuxuu ahaa mamaasan oo badraxaana ka yar waa saaxiibkii sweden buu joogaa wuxuu la kulmay dhowrkan iska xanuunsan buu la kulmay ma ogsoon tahay dhowrkan iska xanuunsane wax waliba shaksi ismaaciil umar geelle mamaasan oo dhan dul saara mamaasan baa ciisii laayay mamaasan baa xoolihii ciisaha gurtay mamaasan baa na laayay ayuu la kulmay si emotional u hadlayay annagu tolkeen waan jecelnahay annagu tolkeen annagu kama baxan urur baan samaysanaynaa war kuwa way bukaadhe kuwaas isagaba ma dhaamaan way bukaan kuwa iska xanuunsan dadkan wax waliba kuwa way bukaan qabiil bay doonayaan inay reerka ay kala burburiyaan reerkana mana burburin karaan already waxa maanta ciisaha xaggaa dhigay waa kala burburka ciisaha la kala jejebiyey kuwa ninka exactly dad waxaa jira iyagu ogeyn inay shaqaynayaan markay dadka ciisihii kala jejebinayaan waxa u dhib yaraynayaan dadkii kale warba uma hayaan intaad dadka isku soo dhaweyn lahayd haddaad qabiil iyaga aad la dhex orodid iminka qaar baa xitaa gabadhaa yare allah u naxariisee la dilay
ilaahayna maaragtay jannadii firdowsi ha geeye qaar baa qabiil doonay inay ka dayaan oo waa la dilay qabiil baa lagu dilay siyaasad baa lagu dilay iimaankaa la kaa qaad inkaar qabayaho waa waraabayaashaasoo bina waa iyagu maalintaabay doonaan ciisaha inay kala jijiyaan war ciisa uu kacay imika waxa nabadidu ay isku daalinin anu waqti waan ogahay adiga maaha kuwaa baan u sheegayaba inay isku daadi iyo cidda kale u haystaba war ciise sidii hore maaha ciise ma ogolaanayo taqalif kasta oo doonaya inuu qabiilkiisa maaragtay ciise ka dhex saaro uu dan kale ree hebel baan eryaraya ree hebel way dhamaatay taasi it's over waagii waxaan anu xasuustaa oo ciisanimadu koontaraba ahayd koontaraba bay ahayd waxaa ri erye jirina ciise ay oran jiray muxuu ku hadlayaa waa qabiili waxaanuu ka hadlay waa maxay baba dadku laga dhex saaraya dadka waa horaa lagaa dhex saara adaa iska dhex saaray markaad adigu aad cuqdad ka qaaday waxaad tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu walaalay waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar u dambaysa ayaan doonayaa nabadiid inaan dadka tuso waa kaa nabadiid certificadii waa kaa ninkaas certificada u mutay marka walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo si fiican looma arkay nabadiidow si fiican baa loo arkay inaad waa aad baa u mahadsan waa kaa waxaad ku heshay waa kumayaal 95% alxamdulilah dheh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tolkay mahadsan inta badan salaada jimcuhu muhiim ay tahay kowdii teri-eed bay sheegaysaa waxaan jeclaa inaan tukado aan soo ducaysto aan tolka u duceeyo ciise weyne oo ilaahay daalimkan ismaaciil cumar geelle uu naga qaado oo ku dhaama ilaahay noo keeno ilaahayna waxaan weydiisanayaa waa maalin jimca oo khayr qabta ilaahay quluubteenna ciisaa waxaan isku haysana ma jiro dad midaataan nahay odayaal 1000 sano horteed oo gundhata iyo qolxadsita soomaalida langaab iyo landheeray soomaalidu iskugu yeedhaan badanka soomaalida qurbaha markaa kula kulantiin waa dad iska jaahiliina dad le maaha fiirtee kalsooni le maaha sida ciisaha maaha jarnaal caydiin nin la odhan jiray ninkii maraykanka jiiday waa nin hawiya oo habar gadiira oo sacda ninka isagoo addis ababa ka khudbadaynaya wuxuu yihi allah u naxariisto horte qolada quraata ee soomaali xeer leh waa ciise buu yidhi inaa iyaka lagu eegto iyaa mudan qabiilada kale markaad aragtid niyo maxaad nagu sheegi weydeen bay koraneen waagii aad samaysanayseen xeerka ciise oo wada ciise nina caarama dheero walaalahayo anigu taariikhda dadkana waan yaqaanaa waana bartaa waana ku dadaalaa wallaahi been ima sheegayo nin isfaaniye baa la idhaa waa ruri naaskeed nuugtay haddaan ciisanahay soomaali waan dheernahay marka ku kalsoono waxaa tahay fiirtee u yeelo waxaa tahay afartan waa niyo de anaku playa nooda dhulku cerkiibu tulooyaa waxa walaalahay inay niga waalin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat nin baan mustafa soo qabanaya soo dirtay soo qabso mustafa adaan kugu gabagabayn bay soo qabso mustafa okay isaguna u jiray walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat cagaaladii inta kale ninka